iyadoo guud ahaan looga diyaar garoobaya xuska munaasabadda qaaliga ah ee 18 May. Dhammaan gobollada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad qaali ah dugsiga tababarka ciidanka qaranka ee degmada Sheekh. Munaasabadan oo lagu soo bandhigay habka diyaar garowga xuska munaasabadda 18 May. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen xogayaha dowladda hoose ee degmada Sheekh Cali Axmed Xaaji Cabdullaahi iyo xildhibaan Caydiid Khayre Xaashi. Munaasabadan waxaa ugu horreyn ka hadlay gaashaanle dhexe Xuseen Daahir Barre. ترياب halkan waxaa diyaar ku ah dugsiga tababarka Sheekh Utumiye ka tirsan oo diyaar u ah 23 guurida 18 May inay la shaqeeyaan ama ay maraan degmada Sheekh ku soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. halkan waxaa u diyaara ma garanaysaay sanad guurada ma garanaysaay 23aad ee 18 May waxaa u diyaara ma garanaysaay ciidankii ma garanaysaay tababarka ciidanka qaranka ee dugsiga Sheekh ayaa u diyaara ma garanaysaay inay soo maraan ma garanaysaa laantii ma garanaysaay baroobada ahayd ee 18 May aynu ugu talagalnay marka ku soo waxaa ugu dambeyn halka ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee degmada Sheekh Cali Axmed Xaaji Cabdullaahi. ciidankaaguba si aad ogtayna waxaan u diyaar garoobaynaa istixraasada guuradii 18 May degmadooda waa laga diyaar garoobayaa idin kale waxaad ku hableeyay sida wanaagsan u diyaar garoodeen iyadoo 4 cisho ka hal 3 cisho. Faysal Aadan Ismaaciil TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland degmada Sheekh.